adaga fawaa'idu leeyahay fawaa'idiisa waxaa ka mid ah annahu yudahiru alfama afka inuu dahiro wa yurdi rabba rabbigana uu ridlo geliyo wa yubayidu alasnaana ilkaha inuu caddeeyo wa yudiibu nuhkata shiirka inuu macnaha u diib yeelo wa yusawi dahra dhabarka inuu ekeeyo qofka dhabarka ma ka soo jabayo qofka adayga badan dhabarkiisa ma soo jabo waxaa ka mid ah faa'iidadiisa kale ciridka inuu adkeeyo wa yushidu lithata ciridka ayuu adkeeyaa waay ciridku adkaynaa wa yubadi'u shayba ciradana waa ta'akhuriya oo qofka macnaha duqnimadiisa ma soo degdegayso wa yusafi alxalqata dhuuntana wuxuu ka dhigaa saafi qofka codkiisa cod saafi ah ayuu ka dhigaa waay wa yudaki fitnata dhugta ama ma arkinoo fahmadana waa saafi yeelaa wa yudaacifu alajra ajarkana waa laalaabaa wa yusahilu nasca wuxuu fududeeyaa nafbaxa qofka markii nafta laga siibaayo si fudud ilaahay uga siibaa fawaa'idaas ayuu leeyahay waay wayudakiru shahaadata shahaadadana qofka waa xasuusiyaa shahaadada macnaha waxa waa tawxiidka qofka markuu dhimanayo tawxiidka ayuu ilaahay xasuusinaa waay adaga u sabab ah adaga fawaa'idiisa ka mid tahay cinda almowt markuu dhimanayo waxaa sunno ah takhliil istakiin inuu isticmaalo qabla siwaak wa bacdahu bacda siwaak markii uu cadaysado iyo markii intuusan cadaysan ka hor intaada cadaysan ka hor inaad istakiin intaa qaadatid ilkaha aad iska bibixisid wixii raashin ku jiro sunno waay markaa cadaysatid kabacdina adaga wixii macnaha googiisa ilkaha kaaga haray inaad iska bibixisid waa adaga midka ugu fiican waay ugu fadliga badan waay oo macnaha istakiinka waxa waaye qabla siwaak iyo wa bacda siwaak waa laga hormarinaa adaga waana laga daba marinaa waay wa min athari dacaami cunada macnaha ayaa macnaha ilkahaada ku harhartay aa iska bixina marka hore markaa cadaysata kabacdina qashinkii oo macnaha googi oo adaga haddana iska istakiime aa iska bixina markaas kabacdaa luqluqana waay haddana istakiinka inuu ahaadaa sunno ah min cuudi siwaak adaga laamtiisa inaad ka jeexatid kaasaa sunno ah waxaa karaaha ah qofka inuu ku istakiinto bir iyo wixii lamid ah bir ilkaha looma dhoweeyo bir inuu qofka istakiin ka dhigto rasuulkeena markuu cadaysaday sal allahu alayhi wasalam xaguu marka adaga uu suro jiray kaana mawdicu rasuulillaahi sal allahu alayhi wasalam mawdica alqalami min udinilkaatibi rasuulkeena markuu cadaysaday kabacdi adaga wuxuu suro jiray meesha qofka kaatibka ah oo wax qoray uu surto qalimka halkaas dhegta ah ayuu suro jiray waay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam marka adagii waxyaalihii aan uga hadlaynay halkaasaan kusoo koobaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.